بسم الله الرحمن الرحيم أنا لفظ إذا أنا ما نقدر سنة سنة مدش اللحظة وعلى بلوغ فلنقيو سياسة الصومال عاوية مرتين نوا مدشة وحا مرتين نوا وذنا آد وقلت تخصصي سياسة الصومال يا محمود حسن وكما قاعد المشرف محمود بسود هو بركه مدشة اللحظة هذه آد باكو سلام يا حسين adiga iyo dhammaan madasha dadka ku jira iyo maamulka madashaba ugu horeeya madaxweynuhu Xasan Suudi dhamaantiin aad baan idin salaamaya waana dhawax adoo aad ugu mahadsan su'aasha ugu horeysan ku weydiinayna waxaan doonaynaa inaan noo turogeyso xaaladda waddanka hooyo meesha uu marayo siiba waqooyiga dalka waa kaaga mahad celinayaa su'aasha aad weydiisay Xuseenow xaaladda waddanku hadda uu marayo runtii guud ahaan ee Soomaaliya waa ka warqabnaa dal burburay oo hadda dib u dhiskiisa iyo sidii la isugu geyn lahaa uun ay socoto federaalayntiisu ay socoto securitkiisa iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha amnigu ay yihiin meelaha haddeer uun dowladda federaalkii ahmiyadda ay siinayso guud ahaan marka waddanka Soomaaliya xaaladiisa waa la wada soconnaa gobolada SSC ama Khaatumo hadda wax iga weydiisay inay su'aashu sida ahayd baan u fahmay diyow goboladaas hadda xaaladda ay ku jiraan waa xaalad u eg military zone wax la yidhaahdo ama xaalad colaadeed baa kaaloosan waxaynu ognahay muddo hadda 2 bilood ku dhow ciidamada Somaliland oo awalba deegaanka joogay oo rabitaanka dadka aan ku joogin iyagu soo galay taariikhdoodana la wada og yahay ayaa duulaan waxay ku soo qaadeen magaalada Tukarraq halkaas ciidan badan oo tiknika ah iyo ciidamo badan ay ku soo daabuleen dhinaca kale ciidamo badan oo ay leeyihiin maamulka Puntland ayaa iyaguna dhinaca kale dhufays kaga jira marka maadaama ciidamada intaa la eg oo deegaankii ay joogaan oo laba dhinac ka kala socda cadaawadna isu haya dhufaysna ku kala jira de kullayba xaaladda ay ku sugan yihiin goboladaasi waad garan kartaa waxay u egtahay hadda uun wax la odhan karo waa military zone baa meesha ka socda arrintaasna dhibaatooyin badan baa ka dhacay oo barakac iyo dadkii deegaanka u dhashay oo culays iyo khalkhal amni uu soo food saaray arrimahaasna waxaan isleenahay waxay ka socdeen oo horeyna dee loo ogaa dhinacan maamulka Somaliland waana arrin runtii culays dalka iyo dadkaba ku ah dhibaatooyin badan oo isu socodkii ama hadday tahay ama xaggii social serviceka dadka gobolka waxbarashadii hadday tahay iyo caafimaadkii arrimihii laga qaban lahaa kulli waxaad muddaa kulliba xaalad inay ka aloosan tahay gobolka amni darro taasna waa la wada socotaan marka taas weeye ta aan rabay uun inaan iftiimiyo dib baa waxaa ugu noqonaynaa maadaama aad adigu soo qaaday yani gobolada waqooyi oo dhan baan ku weydiiyey balse deegaanada SSC maadaama adigu aad soo qaaday aana tahay siyaasi ama de aqoonyahan kasoo jeeda deegaanada aadna ugu dhun daloola hawlahooda muxuu yahay xidhiir ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka wallaahi goboladan Xuseenow SSC ama Khaatumo Soolsanaag iyo Cayn aan idhaahdo xidhiidhka ka dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waa xidhiidh one way ah weeye xidhiidhada dhex mara ama dowlad dhexdeed ha noqoto ama dowladaha kale oo xidhiidhada dhex mara ha noqoto waxay u badan yihiin two ways bay u badan yihiin laakiin halkan waxaa ka jira waa one way street oo kale baa lagu tilmaami karaa waa xidhiidh hal dhinac ka socda oo micnaheedu yahay dowladda federaalka ahi dadka goboladan dega Sool iyo Sanaag iyo Cayn aad bay u soo dhaweeyeen dowladihii kala dambeeyay ee Soomaaliya isaga dambeeyay federaalka intii la qaatay ama lagu sii socdayba in la qaato mar walbana oo arrin Soomaaliyeed laga hadlayo waa dad u dhiifoon aad iyo aad u soo dhaweeya dhibaatooyin badan baa ugu dhacay oo colaad leh oo dil leh oo barakac leh baa ka soo gaaray arrimaha Soomaalinimada marka waxaad moodaa sida dadka goboladan degaa ay Soomaalinimadu uga go'an tahay in dhinacii kale ee dowladda federaalka ah aan laga hayn xiriirkii noocaas ahaa ee goboladan la yeelan lahayd xiriirka ka dhexeeya markaa waa mid dadka deegaanka u dhashay
gobollada sool iyo sanaag iyo cayn ay mar walba iyagu ay ku taagan yihiin soona dhaweynayaan wixii soomaali wax u ah calanka buluuga ah iyo soomaalinimadana ay u taagan yihiin laakiin nasiib darro dhinacii kale ee la rabay inay taageero ka helaan gobolladani ama ha noqoto mid maamul oo maamulka in la gaadhsiiyo ama ha noqoto mid dhaqaale iyo dibudhis iyo horumar oo sida maamullada kale ee soomaaliya laga dhisay dawladdu ay u gacan qabanayso ama ha noqoto mid siyaasadeed oo dhinacyo badan taabanaysa arrimahaas oo dhammi waa arrimo aan dawladda federaalka ah laga hayn gaabiskaa ku jira marka dawladda federaalka ah iyo dayacaa ay ku samaysay gobolladan haddii loogu tegay oo in badan lagaga hadlayna wax weli garowshiiya ah kama hayno laakiin xidhiidhka aad su-aasha adig weydiisa haddaan kusoo noqdo waa xidhiidh hal dhinac ka socda laakiin dhinacii kale wuxuu ku maqan yahay weli aanu la'nahay waa hagaag adoo aad u mahadsan ka waran haddaba siyaasadda cusub ee udhexeeya dawladda federaalka iyo somaliland marka loo eego xaaladda ka taagan dekeda berbera waa su-aal fiican waana kaaga mahad celinayaa xuseenow arrintaa xidhiidhka udhexeeya somaliland iyo dawladda federaalka ah marka laga hadlayo dekeda berbera waynu arkaynay wiigagii ugu dambeeyey arrimaha ka socday mandaqada oo ku saabsanaa heshiiskaa 3 geesoodka ah ee somaliland iyo DP World oo imaraad ah iyo Ethiopia dhex maray heshiiskaasina waxaan isleeyahay wax badan oo qaladaadaba ka muuqda qaladaad ka muuqdana ta ugu weyne waxay ahayd dawladda Ethiopia oo 19% somaliland ay u ogolaatay inay qaadato heshiiskaas ummadda soomaaliyeed waxay ka keentay dood badan iyo dhaliilo badan oo loo soo jeedinayo dawladda federaalka ee soomaaliya waxaadna moodaa arrin ay gabtay oo ayna runtii prioritigii ay u baahnayd arrintaasi ayna dawladda federaalkiihi siin baa meesha ka dhacday waxaynu arkaynay prime ministerka xasan cali khayre waddanka imaaraad ka tegey boqoshada uu ku tegey oo halacsanaan badan baa runtii ka muuqatay isagoo jooga prime ministerkii waddanka soomaaliya ayaa hortiisa heshiiskaas lagu saxeexay laguna dhawaaqay dawladahaasina ay ka qayb galeen Ethiopia iyo imaaraadku arrintaas marka waxaad moodaa mas-uuliyaddii dawladda federaalka ah ka saarnayd isku haynta dalka iyo dadka oo xuduuduhu ay ka mid yihiin oo hawadu ay ka mid tahay oo dhinaca kale marinisku uu ka mid yahay iyo baddii arrimahaasi waxay ahayd tiirarka ugu waaweyn siyaasiyan ee laga doonayo dawladda federaalka ahi in ay wax ka qabato amniga iyo isku haynta waddanku waa labada ugu waaweyn oo dawladda federaalka ahi ay ku fadhiday loo dhaariyey constitutionka uu farayo marka waxaad moodaa halkaa dayacaad badan baa ka timi shaqadaasna kolley sidii ay ahayd in loo qabto dhaliilo badan baa ku jira waxaynu arkaynaa marka dawlad ku casuuntay adigoo prime minister ah oo dal iyo dad magacood oo xilkoodu ku saaran yahay oo haddana waddankeeda gudaheedii lagaga dhawaaqayo dalkaaga qayb ka mid ah heshiisyo sharci darro ah in laga galo waxaan u malaynayaa embarrassment xun bay ku ahayd prime ministerka siyaasaddaasna dawladda federaalka ah baa keentay in arrimahaasi ay sidaa u dhacaan waxaa runtii dee raalli laga noqon karana ma aha waana arrin ay ku dhaliilan tahay oo wax ka qabasho u baahan intaasaan kusoo koobaya waa hagaag adoo mahadsan maadaama aad dayro ka taagan tahay dawladda federaalka oo aad tiri deegaanadan SSC way dayacday haatan ay dayro kala taagan yihiin iyaga iyo deegaanadii kale ee soomaaliya waqooyiga soomaaliya ka jiray siiba somaliland maxaad isleedahay haddaba wax xal baad isleedahay oo ama aad xal u aragtaa oo aad dawladda federaalka aad kula talin leed caawa xuseeno waa kaaga mahad celinayaa su-aasha adi weydiisay wallahi xalku wuu cad yahay waana wax la wada garan kara runtii waayo soomaaliya inta badan waxaa laga hadlaa koonfur iyo waqooyi laakiin waqooyiga laftiisa shacabka ama dadka halkaas ilaahay ku abuuray waxbay kala leeyihiin historicallyna waxbay kala lahaayeen haddeerna ay kala leeyihiin marka waxaanu arkaynaa wada hadallo u dhexeeya dawladda federaalka ee soomaaliya
iyo somaliland oo lagu ballansan yahay jabuuti waxaad moodaa qaybtii goboladan SSC ay ku lahaayeen geedi socodka wadahadallada u dhexeeya iyo ka talagelinteedii inay meesha ka maqan tahay baad moodaa waxaa meesha ka maqan iyaduna maamulkii federaalka ahaa ee ay sugayeen gobolladani in la soo gaarsiiyo oo wakti dheer ay ka soo shaqeeyeen iyagu xisaabtooda maamulkaa khaatumo ay dhisteen iyadana in dhabarka loo sii jeediyey oo arrintaas aad iyo aad looga gaabiyey sababtana aanan garan karin arrinta meesha taallaana marka waxa weeye suurtagal ma aha gobolladan xuquuqdoodiiba waxaan ku maslaxayaa ummad kale iyo dad kale baan waxaan uga dhigayaa maslaxaad oo iyaga waxaan ka horumarinayaa arrimaha lala yaabo oo caqliga bini-aadanka ka weyn oo aan la qaadan karin waxa weeye dad doonaya inay soomaaliya ka go'aan oo dawladdii federaalka ahayd ee dalka iyo dadka u dhexaysay ay siinayso iyadii ay ku sii riixayso in ay go'aan isla markaana ay wax lafarage ah ku siinayso oo dadkii rabay isku haynta waddanka iyo midnimada una dhimanayay una taagnaa dawladda federaalku ay ka gaabinayso roolkii ay ku lahaayeen arrintaa iyada ah inay qaataan arrimahaasi marka waa wax muuqda gobolladeena xuseenow waxay muhiim u yihiin isku haynta waddankay muhiim u yihiin waa bridgekii isku xidhayay waxa weeye soomaaliya weeye haddii aan marka laga talagelin dhammaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda mandaqada haddii aan laga talagelin oo iyaga loogu horraysin in qaybtooda ay ka qaataan kulle cawaaqib xumo ayaa meesha laga dhaxlayaa waayo waxaa la yidhi oda dhaqameed siday u kala sarreeyaan baa loo guraa waxaan dad baa yaqaana luuqadeeda yaqaan taariikhdeeda yaqaana sida ay wax yihiin yaqaana ummadda marka uga xog ogaalsan dawladda federaalka inay la tashato hadday isima tahay hadday aqoon-yahama tahay hadday maamulada lagaga dhawaaqay gobolladan tahay intaba priority in la siiya bay ahayd laakiin kolleyba waxaa noo muuqda dawladda federaalka ahi inay waddo kale ku socoto oo political negligency ah arrimaha halkaas ka yimaada oo somaliland arrinta ay doonayso oo sessionistiga ay tahay oo ay rabto inay go'do waxyaabaha ka imaan karana mas-uuliyaddeeda dawladda federaalka ah baa qaadanaysa haddana arrinta meesha taallaa waxa weeye inagu ummad soomaaliyeed baanu nahay dad dhul iyo gobollo iyo deegaan ka soo jeeda baanu nahay siyaasad aanaan ogeyn marka suurtagal ma aha in lagu hogaamiyo ummadda soomaaliyeed dawladda federaalkiina go-aamo ah waddanka ay ku kala goynayso oo ay qaadato ama ay gobollo dhan dadkii degayay tidhaahdo waxaa mas-uul idinka ah dad ayna waxba isku ogeyn oo qabaa'ilo kale oo soomaaliyada meelahaas weeye meelaha dhaliisha ugu weyn ay ka imaanaysaa khaladka jiraana waa halkaa weeyaan sisheero halka aad naga dhegaysanaysa waa madasha 60 oo aalaba lagu falanqeeyo siyaasadda soomaalida caawana waxaa marti noogu ah maxamuud xasan maxamuud su-aasha ugu dambeysaan raba inaan ku weydiiyo waxa way noqonaysaa inagoo haddan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii waraysiga maadaama aad uga dayrisay siyaasadda federaalka ee soomaaliya aan hadalkaagana ka dhadhansaday inaad diidan tahay siyaasadda somaliland maxaa idinka hor taagan ina aad dawladda federaalka aad ka go'daan aydaan raacinna somaliland xuseeno waa su-aal fiican weye waan kaaga mahad celinayaa ka go-idda laga go-ayo dawladda federaalka ahi arrin yar maaha anaga laftayadu qolo sidaa u fekeraysa ayaanu ku haysanaa oo kaga soo horjeednaa qaabka ay waddanka ay u kala goynayaan marka mid kale oo anana counter attack ah oo dawladda federaalka aanu kaga soo horjeedno oo aanu waddanka ku kala goynaynaa tallaabadaasi horena umaanu qaadan haddeerna nooma soo bixin mana aha wax jadwalka noogu jira waayo isku haynta waddanka iyo midnimada soomaaliya waa arrimo nagu suntan meel kuna yaqaano marka arrintaa iyada ah dawladda federaalka waa u caqli celinaynaa waxyaabaha ay qaldayso ee deegaanka ku saabsanna siyaabo kala duwan baanu horena ugu sheegnay haddeerna aanu ugu sheegaynaa laakiin dee anna waa go-ayaa waxaad moodaa fudaydna inuu ku jiro arrin weyn oo aan lagu tallaabsan karinna runtii dee inay tahay arrinta markii hore annagu aan uba taagnayn oo nala kuna yaqaanina dee waxa ahayd isku haynta dalka iyo dadka
laakiin arrinta meesha ka maqani waa dowladda federaalka ah oo siyaasad iyo road map inay la timaado laga doonayo oo hadda kabacdi aanaan u dulqaadanayn arrimaha kan iska socda ee taladeeda iyo qorshaheeda aanaan waxba ka ogeyn road map cad baanu u baahannahay oo dowladda federaalka ahi ay qaadato oo A iyo B iyo C iyo D leh oo maalin walba meesha wax marayaan lala socon karo oo la garan karo ma doonayno waxyaabihii hadda sababa ka dhacayay oo kale oo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu la kulmayo wasiir ka socda Somaliland oo hadhowna laleeyahay hodheel baanu isku aragnay waa waxyaabaha aanu isleenahay jagooyinka dowladda federaalka ay waaweyn ay ugu horeyso arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha oo la rabay waddanka federaaleyntiisa in meel walba la gaarsiiyo waxaanu isleenahay shakhsiyaadka loo dhiibayana in laga fiirsado siyaasado qaldan oo aan aada looga fiirsanna waxay keeni karaan in waddankani uu meel xun arrintiisu ay ku dambayso annagoo og dowladda federaalkii waktiga ay haysatay inuu yar yahay oo hadda dowladdani cusubi ay sanadba joogto laakiin kolleyba wakti dheer baanu siinay oo aanu siyaasadeeda ka fahamno tii ka horreysay dowladdanna wakti baanu siinaynay iyaga laftoodana waad ogeyd oo aad baanu uga soo horjeeday siyaasadaha goboladan ku saabsan sidii ay u handal garaynayeen dowladdanna dee gashaati aamus baa lagu meheriyaa ma aha laakiin mar walba annagu waxaanu caddaynanaa waxa weye anagu soomaaliya ka go'i mayno soomaaliya qayb ka mida baanu nahay laakiin mar walba arrintaanu caddaynanaa waxa weeye xaqa dastuuriga ah ee aanu ku leenahay dowladda federaalka ah ee gobolladani ay ku leeyihiin oo horumar kale oo siyaasadda leh oo maamul dejinta iyo federaal soo gaadhsiinta leh oo ka qayb qaadashada talada waddanka leh arrimahaas oo dhan oo noo muuqda inay baal marayso haddana annagu waxaan isku dayaynaa inta karaankayaga ah inaanu arrintaa aanan kuna fududaan kana fiirsanno dowladda federaalkaana ugu celcelinno una sheegno wayna jiraan isimoodii iyo aqoon-yahankii iyo maamulkiiba dowladda wuu la fadhiistay horena waa loogala hadlay haddana meeshaanu taaganahay waxa weeye inaanu iyaga dhiiri gelinno khaladkooda sheegno mooyaane arrin ah annaguna inaanu qaldan oo goytaana qaadanno xuseenow taasi meeshana nooguma jirto arrin lala ku yaqaanayna maaha midaanu aqbalaynana maaha waana midda aanu hadda dowladda federaalka ah aanu u sheegayno inay qaladaad waaweyn gelayso dowladda federaalka ah hawlaha kanna inay uga dambaysay ahayd dadka aqoontoodana leh taariikhdoodana haya deegaanadana ka soo jeeda dadka dhulkan ku dhaqanna la dhegaysto maasijyada ka imaanaya iyo aragtidooda intaba marka waa mahadsantahay xuseenow laakiin taasaan kale ugu dambayntii maadaama aan ognahay in siyaasado isku guurguura iyo wadatashiyo ay ka socdaan deegaanada SSC maxaad kula talinaysaa dadka deegaanadan iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba labada maamul ee hareeraha ka xiga maamulka Khartoum State of Somalia waa mahadsantahay xuseenow waxaan kula talinayaa waxa weeye dadka mandaqadan dega ama gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ismadii dee ugu waaweynaa oo garaad Saleebaan iyo garaad Cabdullaahi Cali Ciid iyo wiigii dhaweyta aynu dhegaysanaynin inay lahaayeen ma dhacayso oo ugu dambeeyay iyagu de isimada kale horey u hadleen oo ay lahaayeen arrimo aanaan ogeyn oo dowladda federaalkii gacanta kula jirto baa jira arrimahaasna haddaan nala ka talagelin korkayaga in lagu shaxo waxaanu aqbalayno ma aha waad maqlayseen waraysiyada ugu dambeeyo hadda inagoon isimadii kale uba gelin iyo horey waxay u yidhaahdeen waxaa inagu filan labadan isin aan sheegay iyo aragtidooda ku saabsanayd sida ay uga hor yimaadeen qaababka hadda ay wax u socdaan taasi marka waxay ku caddaynaysaa isimadu dadkay metelaan dadkii marka shacabka ahaa ee gobolladan ku noolaa waxaan kula talinayaa mar walba inay arrintii lagu yaqaanay ee soomaalinimada ahayd ay ahayd isku haynta waddanka ahayd inayna marnaba ka tanaasulin dacwadoodana si sugan oo ay ka fiirsadeen ay dowladda federaalka ah ugu gudbiyaan culaysyada kale ee saaran ee maamulka Somaliland uu ka mid yahay oo dhulkan runtii rabitaan aan ku iman dadkani ay leeyihiin iyo wax la isla ogyahay midna aan ku iman
iyaduna waxa weeye haddii ay iyaguna maqli waayeen ama arrintii baaqiyadii ka soo baxayay dadka dhulkan dega ay qaadan waayeen dagaallo badan iyo colaadena ka dhacday arrintaasi waa arrin weli taagan jawaabteeda iyo waxa laga bixinayana kolleyba dawladda soomaaliyana way u taallaa siyaasiyan dadka mandaqadana way u taallaa guud ahaan soomaaliyana waa arrin u taalla maamulka puntland xuseenow waxbaanu ka dhisanay 1998 maamul lagu midaysan yahay buu ahaa arrimihii loo idmaday ama shaqadii uu ka gaabiyey baa waxay keentay in dadka gobolladan degaa ay maamul ka samaystaan khaatimo la yidhaahdo arrin cad bay ahayd oo da soomaali oo dhammi ay og tahay maamulka marka puntland wixiina soo dhex marayba ama siyaasadihii hadda noo dhexeeyeyba kolley haddeer meesha ay marayso iyagu culays gaar ah oo haddeer lagu hayaana ma jirto way jirtaa marka dawladda federaalka ah doorashadeedu ay dhacayso in baarlamaanadii aan xaqa ulahayn inaanu dooranno iyo masiirkii federaalka ay isu dhigaan oo meelaha jidgooye ay ku sameeyaan de way jirtaa dadkuna raalli ayna ka ahayn laakiin kolley haddeer wax active war ah oo noo dhexeeya puntland iyo khaatimo ma jirto dawladda federaalka ahna waxaan kula talinayaa ama aragtida dadkani ay ka qabaan waxa weeye dawladda federaalka mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaa saaranna waa inay kaga dhabayso wixii loo dhaariyey dawlad federaal markaan leeyahay dawladda federaalku shaksi ma aha qofna ma aha waa team weeye waa regime weeye siyaasad bay leeyihiin siyaasadda ay leeyihiin federaalka waddanku uu ku socdo maamullo badan oo waxaa jira la dhisay oo soomaaliyeed kama xumin waana soo dhawaynaynaa laakiin waxa aanu ka xunnahay waxa weeye inaan arrintaa gobolladan la soo gaarsiin in gobolladani wax talaan ayna ku lahayn arrinta federaalka ah ee dawladda federaalka siyaasaddeeda ku saabsan horumarinta iyo amniga iyo waxyaabo badan inayna gobolladan soo gaarin marka dawladda federaalka waxaanu kula talinaynaa waddanku waa 18 gobol waadna u dhaarateen constitution buuna leeyahay marka inaad soo gaadhaan gobolladan dayicii hore aad ku samayseen mid labaad aydin ugu darin maamulka ay dhisteen la ictiraafo oo sida gobollada kale malaayiinta loogu dhisay ama maamullada kale dee qaybtoodii ay helaan ayaan dawladdana runtii aan ku waaninaya una sheegaya arrimaha ka socda somalilandna dad waxaa jira gobolladan dega sidaan horeba u sheegay oo expertiisna ku ah aqoonna u leh garanayana qaabkii hawlaha kan ay u kala furfuri lahaayeen marka waxay isugu soo hadhaysaa dawladda federaalkii in hadda shakibana galay in lagu aamini karo isku haynta waddanka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed qaababkii wax u dhacayeen horena wax ugu soo dhacayeen dawladihii ka horreeyey haddana meesha ay marayso aanu aragno marka kolleyba annagu xaqa iyaga waana u istaagaynaa waana muujinaynaa horena waa u muujin jirnay dawladda federaalkina roolkeeda inay qaadato ayaanu kula talin waa hagaagkaasi waxa uu ahaa xamuud xasan oo ku magac dheer musharraf oo maanta oo March 8 ah 2018 marti noogu ahaa madasha 60 maxamuud aad iyo aad ayaa u mahadsan aad baan kuu salaamaya xuseenow adiga iyo maamulkaba iyo madashaba aad baan idin salaam